magacaygu Ali Boqor Guuleed waxaan maarayaa xarunta caafimaadka marka koowaad ilaahay baa mahad iskale markana waxaa iskale dowladda deegaanka Soomaalida ee bulshada tabashadeeda iyo cabashadeeda soo joogtay anaguna waxaan ka mahadnaqaynaa dhammaan ciddii ka dambeysay ciddii hawshan ama qaadisay ilaa solaadkiga ilaa qalabkiga ee ummadda shacabka meeshan dhibaatada iyo raaraad ku haystay in laba toddobaad taas waxaan leenahay ilaahay baa mahad iskale marka intaan waxaan leenahay in sana si ka sii fiican in bulshada looga warreeyo ana ilaahay baa naqanay deegaanka wala xagga sidoo kale waxaan ku soo dhaweynaynaa telefishinka Sima TV mid gudoomiyaha qabalaha Giiri Cabdi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما وحن سلام يا دولة الصومالية الملك استجوبته دولة الصومالية الملك استجوبته قيبها كلا دول محاولات في سلام يا لما وحن سلام يا دولة الصومالية كلا جديسا الملك استجوبته قيبها غل وحن في سلام يا وصلوا دقدق وصلوا قليل ما تجيب كل خير ثم تشعب كل قبلها مضني ما شيء باهي تمام والسلام يا ما السجلات راح تحصل طيب الجيل دقدقه مرة هي جدا مرة شهر أيون عدلين نبغوتي وياهان مرة هي وان طبق الله طيبه قلتي وحن مرة هي ترمي قدر حق إلهي naga dhacay qolka waxa weeyaan aad iyo aad u maartay shanta isdadku aad u haraaday aad u qaxay hadii maartay bulshada shacabka qabalaha dariska laahay hadii ay tahay aad bay maartay u qaxday aadna waa loo soo gaaro dawladda way ku mahadsantay boqolkiiba boqol waxa weeyaan aad iyo aad baan iigu mahadnaqaynaa gudoomiyaha mar hore waxaad cabasho noo gudbiseen inaad u baahneen solarta cabashadiina waxaan iga soo dad kamid ah qurba joogta ee u dhashay galbeedka gobolka City baaqiya amaanta u dirisay maxaa kamid ah qurba joogta inuu soo jawaab baaqin aad baan u mahadnaqayaa qaybaha qurba joogta ee noo soo diray maartay qaybtan solarta ka maqnay horena cabashada aan ugu sii daranay aad baan uga mahadnaqayaa aadna waan u salaamayaa meel walba ay joogaanba aadna waan u salaamayaa waxa weeyaan gaar ahaan wariyaha maartay midayna soo gaaray aad baan sax ugu mahadnaqayaa oo salaamayaa waxa weeyaan duca maartay insha Allah xagga Ilaahay baad ka liibaanaysiin garabkiina wax kasta maartay aad u baahantiin xagga Ilaahay baad keenaysiin kulli maartay baahi badan oo maartay shacabku leeyahay u jira jaana waxaan maartay gaar ahaan aan igu codsanayaa wax walba inaan maartay aad nooga si fiican dadkii shacabka hadda xagee ku sugan yihiin gudoomiye dadkii shacabka waxa weeyaan intiisa badan afdam ilaa afcase ilaa maartay dhulka harbar barakacay dhulka uu kala tagay waxa weeyaan hadda waxaan igu mahad celinayaa intana inay halkii ka daba tagileed hadii aad soo gaarin oo maartay gumadka degdega aan iga helin waxaan maartay kan igu mahadnaqayaa inta aad soo gaadhay waxaan ku noolahay marka cabashada aad u badnayd eelka naga xumadatay tahay wax walba waan arko cabasho waan lahayn laakiin waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dawladda iyo walaalihiina kale qurba joogta sida degdeg ah loola soo gaaray feerka aan shanta isha u haraadeen marka waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa dawladda iyo qurba joogta dhammaantood insha Allah ilaahayna inuu liibaano sida gurmadka degdeg ah loola soo gaareen cabashadu way badan tahay dawladdan waxaan ka codsanaynaa maadaama dadkii miyiga ee xoolo dhaqatada ahaa ay laga soo qaatay ceelashoodii ay waxay allaaliyo waxay ka abaalayahaysan ceelkan kaliitan ku fileen inay balliyo qodaan balliyada ay u qodaan ay cagaf markaan ka codsanaynaa wax walla aan u qabanayno haddaan nahay bulshada qabalaha madane inay dawladda la garab istaagtaan u baahanahay aad iyo aadna waan ugu mahadnaqaynaa dawladda iyo walaalihiina kale qurba joogta ee sida degdeg ah noogu soo caawiyeen in loola soo gaaray horta aad iyo aad baan ugu xunahay guriyaha horta waxaan ku salaamayaa amba u mahadnaqayaa idaacadda Sima TV sababtoo ah cabashadeeda mar walba iyo ka tagiya oo u tagiya dawladda meel walba noogu tagiya aday qurba joogtahay marka aad iyo aad baan ugu xumaanay xariga
maadaama wariyey sababta iskagoo wax kalena duubayn oo cabashada bulshada duubayay darteed loo xidhay aad baan uga xumaanataa